waqtiga ugu wanaagsan ee la cadaysto ma cuntada ka horba mise cuntada kadib muuqaalkan ayaa ugu jawaabi doona su'aasha ah waqtiga ugu wanaagsan ee la cadaysto iyo sababaha ay ugu wanaagsan tahay waqtiyada kale taba fadlan soo dhawo oo la lameysa muuqaalkan balse inta muuqaalka bilaabanin waxa ka cabsan inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana ugu faa'iideystaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا دمان صاحبيال si aad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtaybo muuqaalka waxa la rabaa inaan ku sharxo waqtiyada ugu wanaagsan ee la cadaysto waxa jira saaxiibo badan oo su'aasha noocan isu weydiiyay waxaana jeclaan lahaa inaan muuqaalkan ugu faa'iideeyo sida wada ognahnaybo sida caadiga waxa la cadaystaa laba waqti hal mar oo maalintii ah iyo hal mar oo habeenkii ah marka su'aasheeda laakiin oo muuqaalkan ugu jawaabi doona ayaa ah maalintii waqtiga ugu wanaagsan ee la cadaysan karo waa waqtigee run ahaantii labada waqtiba aad ay u wanaagsan yihiin inaad cadaysatid cuntada ka hor iyo cuntada kadib balse waxa si wanaagsan inaad cadaysatid cuntada ka hor gaar ahaan markaad hurdada ka soo kacdid sababtay ugu wanaagsan tahay inaad cadaysatid markaad hurdada soo kacdid wax kale ma ahan markaad habeenkii hurdaysid afkaaga waxa ku sameysmaayo wax loo yaqaan huure oo ah lakab yar oo khafiif ah oo ilkaha dushiisa ku sameysmo inta ugu badanna waxa sameeyo bacteria si walba oo aad u cadaysatid habeenkii markaad seexanaysid dadka intooda ugu badan afkooda waxay ku arkaan lakabkaas markay hurdada ay ka soo kacaan marka lakabkaas huurada ah marka afkaada uu ku sameysmo subaxii markaad soo kacdid hadii aadan cadaysanin oo aad cunto cuntid cuntadaasi waxa quudo doona ama cuni doona bacteria ku nool afkaaga bacteriadaas markay quudato huurada ama wax loo yaqaan cuntada aad markaas cuntid waxay sababi kartaa dhibaatooyin badan marka bacteria afkaaga ku jirtay markay quudato cuntadii aad ku quraacatay ay ka dhalagto waxay sameey doontaa waxay soo deey doontaa acidkaasi wuxuu kugu sababi karaa number 1 suus iyo sidoo kale number 2 inuu isbedel ku yimaado ilkahaaga gaar ahaan midabka ilkahaaga inuu isbedelo uu noqdo midab huruud ah ama midab yellow ah ama jaalo ah run ahaantii ani ahaan waxa kugu talin lahaa inaad cadaysatid ilkahaaga markaad hurdada ka soo kacdid ama cuntada ka hor sidoo kale waa ku talin lahaa inaad cadaysatid ilkahaaga cuntada kadib balse cuntada kadib hadii aad waqti aad waysid oo aad dadagsan tahay ama hawlo kale aad leedahay waxa isticmaali kartaa inaad ilkahaada ku luqatid dawada ilkaha lagu luqdo ee loo yaqaan mouthwashes dawadan midan ayaa kamid ah noocyo badan oo leedahay mouthwasheska nooca heli kartid nooc isticmaali kartaa hadii aad markaas gurigaaga aad iisan oolin dawada ilkaha lagu luqdo waxa isticmaali kartaa waxa isku dari doontaa biyo iyo cusbo kadibna cuntada kadib ay ilkaha ku luqdo doontaa sidoo kale waxa ku talin lahaa inaad ilkaha ku cadaysatid wax loo yaqaan soft brush oo ah brush jilicsan waraantii brushka jilicsan wuxuu ka hortagaa inuu ciridkaaga dhaawac soo gaaro iyo guud ahaan ilkahaaga ugu dambeyn guud ahaan waxa kugu talin lahaa inaad ilkahaaga cadaysatid maalintii laba waqti subaxii markaad hurdada ka soo kacid iyo habeenkii markaad seexanaysid waqtiyada kale tan aad isticmaashid dawooyinka ilkaha lagu luqdo ee loo yaqaan mouthwashes anigoo kaaga mahad celinaya daawashada muuqaalkan fadlan waxa ka codsan inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si aad u heshid fariimo caafimaad oo joogto ah ku soo biir Facebook page-kayga oo follow saar sidoo kale ku soo biir YouTube channel-kayga oo subscribe saar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته